وحجرتك هولوين كيو كذا كشلا لما وقع كل عيد ماذا قال كذا لما وقع كل سلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كفالي وحنا محظوينا شركة النوم قاعد بحي شركة النبضة ورول ولد إن هالك اللي قاعد فيه مدك بعلي فكر فيه يبقى عمدي كسر بحي وهذا الصوت وها اللي ما ولا قال لها شركة النبضة. الله وحنا كسر بحي هايجي تتحكيسوت كها هذا يدك الصومالي لان تهاي هذا يدك يسوسي تهاي هي هذا تهاي لك شعب قبل ما تروح. waxaan farxad weyna in ay maanta ku beegan tahay taariikhdu 26 Juun ee taariikhiga ahayd. insha Allah waxay noqon doontaa wax laga gudbo waxyaalaha shirka kalifay ee laga wada hadlayay ee la kala tabanayay in laga gudbo oo lagu dhaco sidii xilliga 26 Juun gumaysiga looga baxay kale. haddii la qaato nidaam ama nabad waxaa loo baahan yahay qof kasta oo mas-uula ama goobjooga ama inta loo taliyayo loo qaadaya inuu mid waliba xilkiisa iska saaro sidii ay ugu heli lahayd. aad iyo aad baan u mahadsantihiin. haddana waxaan raaxaynaa saxiixii. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. والسلام على أشرف المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة جرائمك رقاشة ابن عيد الدين بيقويك مدحنا قناة الدوغليان وروك هاوينك dhalinyarada ciidamada qaranka dhammaan marwooyin iyo mudanayaal waxaa aad iyo aad idinka mahad celinayaa sida qiimaha iyo sharafta leh ee muddadii aynu halkan joognay oo muddo 7 ah idinkoo ka kala yimi aaga kala duwan oo fudfud isoo soo hawlay inaynu dhisno nabad midnimo iyo horumar inaynu muddada waxaan idinka mahad celinaya adkaysigii aamusan dadaalkii aad u dadaasheen sidaynu gaari lahayn guul shirkan aynu ku guulaysana ee guulad alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waanaynu guulaysan. maanta siduu kutoobuhu sheegay bishu waa 26 Juun waxay leedahay dhowr calaamadood. 26 Juun waa maalintii Somaliland gumaysigii Ingiriiska xorriyadda ka qaadatay. 26 Juun waa maalintii doorashadu dhacday ee xisbigan maanta talada haya loo codeeyey 2010 oo kula guulaystay maanta asuna ahayd. 26 Juun waxay noqotay maantana maalin taariikhi ah oo aynu saxeexnay go'aamo dhaxalgal u noqon doona dalkan oo aynu ku saxeexnay madashan qiimaha leh ee sharafta leh ee gurguri aynu ku saxeexnay aynu saxeexnay Somaliland ummaddeena dhulbahante yeesi aynu saxeexnay inay tahay maalinta 26 Juun. hadafkeena ama fishankeena ama aragtideena kulankanu ama shirkanu waxaweye waa nabad, waa midnimo, waa horumar, waa waalidnimo. kaa weeye korkeena iyo ujeedadeena.
إن نقولنا أين أسعد الأهلين نبض وحيو بعانتي وتبير بيو بعانتي حاول بدن بيو بعانتي فراسو حيكون تبعتا وحيا دقيقة يكون تبعتا نبض تلاقي وحيو بعانتي يلوه لبعضيكم وقت دير الله هو ميلاد بدن الله تبو عيد بدن حلاقة عادية أنا لقيت على البعض وحين ما تزولنا إنتنا إنك صار إجرامين بدن وكلا حوجة وجرا إنه نقولنا سكانة دعنا في عكسة كاتبينه عينو ترينو تكينا halkani waa shabakada wararka ee Telex Media oo aad ka daawanaysaan shirkii ay kooxda SSC iyo SNM ku yeesheen magaalada Wiyid waa xafiiska wararka Telex Media magaalada Nairobi halkii aynu ku bedelno inaynu qoriga dhigno oo aynu horumariyo waxbarasho caafimaad iyo nolol wanaagsan aynu ku bedelno taa maanta aynu ku faydano intaynan halka jooga aynu noo maalin kasta oo runtii aynu shirka ku jirno kollayba ilaa 2 jeer madaxweynuhu